Culumaa udiinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya ayaa garab istaagay dadaalada loogu gurmanayo dadku abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool dalka Soomaaliya kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Nairobi. Hay-adaha iyo ururada warbaahinta dalka Soomaaliya ayaa maamulka Puntland ugu baaqay in uu xayiraada ka qaado xarumaha TV-ga Universal uu ku leeyahay deegaanadaasi. wararka dibadda aan idin haynana waxaa ka mid ah Kuuriyada Waqooyi oo muddo 48 saacadood u qabatay in uu kaga baxo dalkooda danjiraha Malaysia u fadhiyay dalkaasi. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu door corona markana u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan. warkii oo fidsan madaxa hay'adda dabdamiska maamulka gobolka Banaadir ayaa iscasilay kadib markii uu sheegay in maamulka gobolka uu bixin waayay xuquuqdii ay lahaayeen shaqaalaha gurmadka degdega. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Cabdinaasir Ayaanle. Cabdullaahi Maxamed Cabdulle Sane oo ahaa madaxii hay'adda gurmadka degdega ee dabdamiska gobolka Banaadir ayaa shir warbaahinta ugu qabtay Muqdisho ku sheegay sababtu isku casilay. anigoo magacayga leeyahay Cabdullaahi Maxamed Cabdulle Jimcaale oo ku magac dheer Sane maanta oo taariikhdu tahay 6 bishii 3 2017 waxaan iska casilay xilkii agaasimaha gurmadka degdega iyo soolarada gobolka Banaadir oo muddo 4 sano aan ka shaqeynay aniga oo ah dadkii aasaasay dabdamiska Ingiriiskana ka keenay asigoo hawshaas oo mas'uul ka ahay oo muhiimadda ay lahayd oo gudoomiye hore gobolka Banaadir duqa magaalada Maxamuud Nuur Axmed Nuur Tarsan oo ahaa ninkii hindisay anigana shaqo badan oo magaalada Ingiriiska aan ka qabtay baabuurta xilligaas ayaa ahayd xilligan bilaabnay waa 2012 sidaa darteed maanta waxaan ku dhawaaqayaa si official ah inaan agaasimaha gobolka Banaadir ee dabdamisyada iyo soolarka magaaladan inaan iska casilay ayagoo ay jiraan duruufo aan ognahay muddo dheerna ku shaqeynin intaan ka badan shaqaalaha mas'uulka ka ahay oo ilaahay ka soo mas'uuliyadda la saaray inaan intaas ka badan si wadi karin shaqada inaan mas'uul ka sii noqdo ayagoo xuquuqdoodii la ayagoo xataa la daryeel gooniya. Cabdullaahi Maxamed Cabdulle Sane ayaa sheegay in shaqaalaha dabdamiska ay dhibaatooyin badan kala kulmaan daminta dabka ka kaca suuqyada haddana aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen. dabdamiska si ogtiinba waa wax shaqo adag oo ummadda magaalada Muqdisho 3 milyan ku nooshahay 17 degmo ay naga saarnaayeen 4 sano la soo dhaafay saa ogtiin 4 sano ka hor magaalada dabdamis ma lahayn xilligiisii aad baraag u dhameysay waa asaasnay shaqaalaan tababarnay Nairobi aan u qaadnay si international level ama ugu sareyso ay shahaadooyinkooda soo qaateen maanta waxay ahayn macallimiin maanta waxay ahayn gobolada Soomaaliya tababaraan maanta waxay yihiin nimanka ka damiyay magaalada sanad walbeeto ugu yaraan 57 dab 60 dab ay sanadka ka damiyay magaaladan wax ay ku haystaan oo Ilaahay abuurtay oo xaq gooniya oo macnaha wax xuquuq gooniya ma jiraan macnaha dhibaatada ugu weyn oo haysata waxa kamid ah dabkii hadda ugu dambeeyay ka dhacay Bakaaro suuqaas weynka oo intaasoo saacadood la tacaalay oo intaasoo waqti aan geliyeen dhalinyarada waxa ku ceshoomay naqaska 4 ayaa ku dhaawacmatay mid musbaara muday oo kaba mahaystaan biilaan aanan sanbabadooda qaar tiibisha ku dhacday saa darteed baahidaas dhibaataas awgeed waxaan adkaysaday inaan aniga aan shaqadan mas'uul ka sii noqdo. Hay-adda dabdamiska gobolka Banaadir ayaa ka mid ah hay'adaha ugu muhiimsan ee gobolka Banaadir marka laga hadlayo daminta meelaha gubta iyo dabka ka dhasha qaraxyada mararka qaar ka dhaca magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdinaasir Ayaanle, Universal TV, Muqdisho. Culumaa udiinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa sheegay in ay garab taagan yihiin gurmadka loo fidinayo dadka abaaraha ay saameeyeen ee ku nool dalka Soomaaliya. faahfaahinta warkan magaalada Nairobi waxaa ka soo diray wariyaheena Axmed Nuur Cali Maxamed. iyadoo laga duulayo saameynta xoog leh oo ay yeesheen abaaraha ka jira guud ahaan dhulka Soomaalida ayaa culumaa udiinka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya kulan ay isugu yimaadeen magaalada Nairobi waxa ay kaga hadleen masiibadaasi
culimada ayaa shirkooda ku magacaabay guddi loogu magacdaray guddiga gurmadka abaaraha kaasi oo shaqadiisu ay tahay in dadweynaha Soomaaliyeed ee waxaysta ay ka soo ururiyaan kaalmad degdeg oo loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha ka jira dhulka Soomaaliya. culimadiinka ayaa ugu baaqay dadweynaha Soomaaliyeed inay qayb muhiim ah ka qaataan gargaar degdeg oo xilligan ay u baahan yihiin malaayiin Soomaaliyeed oo xoolihii ay dhaafiyeen abaaraha ka jira guud ahaan dhulka Soomaaliya. Sheekh Maxamed Cabdi Umar, Sheekh Maxamed Cali Jaamac iyo Sheekh Maxamed Cusmaan oo dhammaantood ka mid ah culimadiinka waaweyn ee Soomaalida ayaa goobta ka hadlay. caalam kale badan baa gurmanaya oo carab baa gurmanaysa oo turki baa gurmanaysa oo heedaa ordahayo oo haddana maca daalika waxay tari karaan aad bay u yartahay innagaa ka mudan oo dadkaasi dhaqan yani dhalashana la wadaagna dalna nagala dhexeeya diinna nagala dhexaysa walaalo ah derisna ah si walba uga xigna mas-uuliyad weyn baa inaga saaran muxuu ahaayey guddiyaha meel walba ka dhisan guddiyadaa dhisan ee meel walba ka jiraayay wixii lala gaari karo sida sheekhu u sheegay si toosa hala gaadhsiiyo guddigan Nairobi hadda ka jira arrimaha abaaraha loogu talagalay raggan ka fadhiyaan ama qaybana noo joogan qaybana maqan yihiin iyadana wixii aad ku soo dirtaan insha Allah taala anoo kulay degmo gooniya iyo deegaan gooniya ma matalayno laakiin qorshuhu waxa weeyaan wixii na soo gaaray inaan dhulka oo dhan dib ku gaaray wixii aan gaarsiin karin inaan gaarsiino say u kala daran tahay madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaarihiisa khayre iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ummadda Soomaaliyeed loo soo gurmado ummadda in la badbaadiyo wixii maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala na soo gaarsiiyana sida si amaano leh oo hufnaan leh oo u kala daran yihiin baan u gaarsiinaynaa insha Allah ta'ala sidaas ayaan u gaarsiinaynaa marka waxaan ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ku celinayaa fariinteedaas qofkii ay soo gaarto meel kastuu joogo wax allaale wixii awooddaadu tahay inaa ummadda Soomaaliyeed u soo dirtaan waayo abaaraha hore waxay ahaan jireen iyadoo dadka xooluhu caafimaad qabaan oo xoolihii ay u nool yihiin ayuunbaa meelaha qaarkood ay ku dhici jirtay inta kalena badbaadi jirtay ama iyadoo baadkii la hayo xoolihiina hagaagsan yihiin baa biyo la waayi jiray dabeetana sidaasaa loogu gurman jiray laakiin maanta xoolihii aad bay u liitaan oo waa xanuunsanayaan dhulkiina abaara meelaha qaarkood saddex jirsaday baa ka jiro baad ma jiro dadkii waxay u baahan yihiin markaa waxay cuni lahaayeen waxay u baahan yihiin waxay cabbi lahaayeen xoolihiina waxay u baahan yihiin in ayagana la quudiyo. Axmed Nuur Cali Maxamed, Universal TV, Nairobi. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Turkiga uu kala soo hadlay sidii ay gacan uga geysan lahayd xaaladda abaarta ee ka jirta deegaanada uu ka arrimiyo maamulkaasi. faahfaahinta warkan magaalada Baydhabo waxaa ka soo diray wariyaheena Muxudiin Xusni. madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Turkiga iyo magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo oo xarun ku meel gaar u ah Koonfur Galbeed. madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa soo dhaweyn ballaaran oo ay ka qayb galeen wasiirada maamulka Koonfur Galbeed xildhibaanada odayaasha dhaqanka haweenka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan loogu sameeyay gudaha garoonka diyaaradaha ee Baydhabo waxaana sidoo kale soo dhaweynta ka qayb galay madaxda maamulada gobolka iyo degmada gudoomiyaha gobolka Baay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed iyo wasiirka beeraha iyo waraabka Maxamed Xasan Fiqi ayaa ugu horeen ka hadlay soo dhaweynta loo sameeyay madaxweyne Shariif Xasan Sheekh Aadan. الرحمن الرحيم مدحوينه كدواو بدوها كدواو سفركيدا كمقنايتي ciidanka suwaani deegaanka dabcan walaag warbixin xafiiska la shalgaade ciidan ma santa walbada dadantaal waana ka rajeynaa in koyta ka dhawaaw deegaanka ka dhaw mar labaad iyo saddexaad laakiin waxaan rabnaa oo kaliya inaan ku muujino niyadda iyo qalbiga maamulka Koonfur Galbeed shacabkiisa ay ku hayaan inaad dareento u baahanto garoonka u imaanay wixii war ku saabsan oo ku saabsan amni ku saabsan siyaasad ku saabsan dhibaatooyinka dalka ka jira oo hore aad u maqashay madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa ka warbixiyay socdaalkii uu ku tagay dalka Turkiga isagoona sheegay inay ka wada hadleen sidii gurmud loogu sameyn lahaa dadka abaarta saameysay
maadaama deegaanada koonfur galbeed ay noqdeen goobaha ugu daran oo abaarta ay dadka ku saamaysay waxaana sidoo kale jira in dad 200 ku dhow macaluul iyo cudur shuubiyood ay u geeriyoodeen deegaanada koonfur galbeed mahad ilaahay isku leeyahay ma nagaana nabad ilaahay ni ziyaadiye runtii abaarta iyo jiilaalkan ilaahay weynaayo waayadaha inoo qaado abaar dhibaato badan leedahay iyo cudurba runtii ilaahay wali ku tuuganayna wadanku ilaahay nabadgelo roob ilaahayna si culimada Soomaaliya wali dhigayna waxa saaran in la roob doona marka dadku wali balana roob doon ilaahay helan nagadoy niisama iyo roob doon inay ummadun ilaahay dhibaatadan ku qaado ilaahay roobna si nicmada ilaahay leh walka filan nagado koraan runtii wali kalaanka baaqana caalamka ummadan Soomaaliyeed oo dhibaataysan gaar ahaan gobolada dhibaatada abaarta iyo jiraan iyo biilaanta iyo cudurka iyo ammaan la'aanta in la gurmada ummaduntan ana siyaanay dhibaatada ku bad in dadaal badan la siiyo dadka Soomaaliyeed qeybasha shil duun gaar ahaan dadka gobolada dhaladeen wali inka baaqay inay oonay dad soo ku warqabaan si dadku dhibaatooyinka ku baafadeen runtii biilaanta dhibaato badan ka hayta intuuna ogna biyo wasaqay la waraabahay biyo yaraadana dhibaato qoyti biyoasna ilaahay la sheena karo marka ilaahay wali balana in ilaahay roobna siiyo ummadan wali faraane inay dhamaanteen niisama iyo dadaal badan la geli sida dhibaatada lagu baafadeen marka caalamkana wali baan ka baaqay in ummadan tan gargaar degdeg ah la deera si dhibaatada lagu baadaawo iyo raashin iyo qalab kasta oo ay u baahan yihiin sida la kala deera runtii safarkan ka maqnaay dawlad badan aan aragay kulay dawladda Turkiga gaar ahaan qaybtan qaabilsan qaybta oo kaalmada iyo dib u dhiskaba runtii la kulmi balan waa in qaadan inay kooy doonaan gobolada dadaal badan ay ku qabado doonaan Muxuddin Xuseen Universal TV magaalada Baydhabo golaha guurtida Somaliland ayaa muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha iyo golayaasha wakiilada iyo guurtida oo muddada ka harsan xilkooda uu gabagaba yahay faafahinta warkan wariyaheena Muqtaar Ismaaciil Cali ayaa ka soo diray magaalada Hargeysa fadhi ay maanta yeesheen mudanayaasha golaha guurtida Somaliland ayaa la hor keenay go'aamada ay soo gaareen 21 xubnood oo loo xil saaray inay ka soo tala bixiyaan muddo xileedka loo kordhin doono golayaasha deegaanka guurtida iyo wakiilada iyo madaxweynaha Somaliland waxaana go'aamada ka hor akhriyay fadhiga mudanayaashu ay yeesheen gudoomiyaha guddigaasi Siciid Jaamac Cali waxaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo ku eegstay 20 bisha Abriil 2017 lagu sameeyay kororsiimo ka bilaabaysa 28 bisha Abriil 2017 kuna eeg 13 bisha 2017 golaha wakiilada oo dhamaadka muddo xileedkoodu ku eeg yahay 28 bisha Abriil 2017 waxaa lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabaysa 28 bisha Abriil 2017 kuna eeg 28 bisha Abriil 2019 waxaa muddo xileedka golayaasha deegaanka oo ku eeg 28 bisha 2017 lagu sameeyay muddo kororsiimo ka bilaabaysa 28 bisha 7 kuna eeg 28 bisha Abriil 2019 doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka waxay qabsoomayaan isla hal waqti bay qabsoomayaan ahna bil ka hor dhammaadka muddo xileedka loo kordhiyey muddo xileedka golaha guurtidu wuxuu noqonayaa hal sano kadib muddo xileedka golaha wakiilada kadib waxay mudanayaasha golaha guurtida Somaliland gudagaleen inay cod u qaadaan soo jeedinta guddigaasi waxaana ku dhawaaqay natiijada gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan waxaynu ku fadhinaa 76 xildhibaan baynu ku saddexdeed xildhibaanadaanu ka midna waayahay soo jeedinta guddidii soo jeedisay inta oo golay gacanta taag
diidan gacan baa halkaa ka arkaya waxaa oggolaaday soo jeedintii guddiga 74 xildhibaan baa oggolaaday xildhibaanna waa diiday annama codaynin sidaasuu ku ansaxay kadib markii fadhigaasi soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay mas-uuliyiinta saddexda xisbi siyaasadeed ee somalilan aad iyo aad baan ugu kalsoonnahay waana taageersannahay go'aanka ay golaha guurtigu gaadheen waana ku taageersannahay go'aankii ama heshiiskii ay wada gaadheen axsaabta qaranka komishanka iyo madaxweynuhu ee ahaa in la qabto 10 Oktoobar doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan golaha wakiilada iyo deegaankana la qabto 10 Oktoobar 2018 kaasaan filaynay kaasaan rajaynaynay hase yeeshee go-aanka golaha guurtigu gaadhay oo iyagu xaq siinayo dastuurku ama mandate-ka extensionka uu dastuurku siinayo golaha guurtida waxaan u malaynayaa 60 maalmood bay ku dareen ama dhowr iyo 60 maalmood inkastaanu jeclayn go-aankaa hore go-aankooda waa soo dhaweynaynaa golaha guurtida runtii maanta marka go-aankooda waxa ka soo baxay 2 qodob ka soo baxay kii madaxweynaha intii aynu filinay wax badan kumay kordhin waana soo dhaweynaa ka xisbi cud ahaan go'aanka golaha doorashada madaxweynaha madax ku-xigeenka ay ku saleeyeen waana soo dhaweynaa laakiin runtii waxaanu ka xunnahay in labadii gole ee waddanka intaas sano fadhiyay ee golihii wakiilada 2005 la soo doortay ee 12 sanadood fadhiya ee muxuu ahaayay sharci darrada ku fadhiya inay 2 sano oo kale u sii kordhiyaan taama soo dhaweyno waanu ka xunnahay mukhtaar ismaaciil cali telefishinka universal hargeysa hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa sheegtay in laan cusub ay ka furan doonto magaalada Baydhabo sida uu ku waramayo wariyaheena Muxudiin Xusni waa tahay daawadayaal warkaasi dib ayaan ugu soo laaban doonaa markana 3 qof ayaa u dhintay labadii cisho ee ugu dambeysay xanuuno la sheegay in ay sababtay abaarta taasi oo ka dilaacay deegaano ka mid ah gobolada Saraar iyo Togdheer sida uu ku waramayo wariyaheena Xabiib Ciga Xasan oo warkan ka soo diray magaalada Burco inta laga warhayo 3 qof ayaa ku dhintay labadii casho u dambeeyay tuulada Yadanka ee ka tirsan gobolka Saraar tira intaasi 3 jeer laab ka badina waxay u jiifan xanuuno ka dilaacay deegaankaasi xanuunadani abaari keenteeda ah oo ka dilaacay deegaamada waqooyiga gobolada Togdheer iyo Saraar oo ugu horeeya shuban biyoodku ayaa dadka ku nool tuulada Yadanka ee ka tirsan gobolka Saraar oo labadii casho u dambeeyay 3 qof oo waayeela ku aasay tuuladaasi waxay TV-ga Universal uga warbixiyeen xaaladda caafimaad darro ee la soo daristay muddo dheer xanuun ayaa haystay magaaladan xanuunkaasoo muddo dheer haystay oo aan xanuunkaasoo shuban u badan kaasoo af xanuun u badan kaasoo dhuuxu shumaya dadka kaasoo ummad fara badanna ay u dhimatay ummad badanina bay kaysa karaadba tahay ilaa shalay waxaanu aasnay 3 qof ayaanu aasnay mid halkan 2 magaaladan ayaanu ku aasnay midna waxaa lagu aasay Saraarta hoose lagu aasay ka mid ah odayaasha magaalada magaaladani waxa weeye waa xanuunsanaysaa hadii la kuriyaadna waa u jilicsan tahay waxa weeye ilaa shalayto 3 qof ayaa magaalada ku dhintay waxa ku dhacayna waxa weeye waa hargab isjiid hadii la kuriyo xanuunaan la garanayn waxa weeye ilaa shalayto 3 qof ayaa dhintay dad kale fara badanna wuu jiifaa wuu banaday yahay shuban iyo hargab iyo hadii la xanuuno kale oo ilaahay uu garanayo ayaa ku dhacay waxaanay mar kale bulshadani sheegeen in aanay arag cid ka socota dawladda ama hay'adaha caafimaadka ka shaqeeya oo ay ugu baaqeen in lala soo gaaro gurmad caafimaad oo degdeg ah waxaanu leenahay aan ugu baaqaynaa xukuumadda wasaaradda caafimaadka inay si degdeg u soo gaaraan dadka ay wax uga qabtaan ilaahay ayaa caafimaadka haye wax daweeya iyo wax hadii laba kuuray wax ka qabta midna ma arag hadeerna dad dawr iyo 10 iyo hadii laba kuuray waabaha jiifa oo xanuunsanaya oo hadii laba kuuray wax ka qabta la marka wasaaradda iyo hadii laba kuuray waxaanu ka codsanaynaa iyo hadii laba kuuray wax garadka iyo wasaaradda in waxa weeye dadka si degdeg ah caafimaadka waxa weeye wasaaradahaas ay ula soo gaaraan xanuun baa ku dhacay ilaahay baana u keenay marka waxaanu salaamaynaa oo ogeysiinaynaa wasaaradda caafimaadka iyo xukuumadda ayaanu ogeysiinaynaa
inay si degdega ula soo gaadho caafimaad iyo yacniga moogtay gargaar ula soo gaadho markaa waxa weeye waayeelkii magaalada ayaanu nahay baaq intaasaan ayaanu soo jeedinay dadkani ay xanuunada abaaruhu keeneen soo riteen oo isugu jira da' kasta oo ka mida bulshadaasi ayaa suurtagala inay si socoto dhimashada dadkaasi haddii aan lala soo gaadhin daawooyin iyo caafimaad ilaah baa caafimaadka baxshe xabiib ciga xasan universal t v magaalada burco hay-adaha iyo ururada warbaahinta ee Soomaaliya ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ayaa ka dalbaday maamulka Puntland in ay xayiraada ka qaadaan xafiiskii wararka TV-ga Universal ee Puntland oo lagu xiray qoraal ka soo baxay maamulka madaxweyne Gaas sida uu ku waramayo wariyaheena Zakariya Maxamuud Timcade oo warkan inoo haya. maalin koor ayaa maamulka Puntland waxay ku dhawaaqeen inay shaqo joojin ku sameeyeen dhammaan xafiisyada TV-ga Universal oo ku lahaa maamulka Puntland. Mas'uuliyiinta warbaahinta iyo ururada u dooda suxufiyiinta ka howlgala Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in maamulka Puntland uu qaatay tallaabo khaldan oo ku xiray xarunta TV-ga uu ku lahaa Puntland. Xogayaha ururka suxufiyiinta qaranka ee Nosaj Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa ka codsaday in si shuruud la'aan ah dib ugu ogolaadaan shaqadiisa. sidaa darteed annagoo matalayna ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxaan aad uga xunnahay isla markaana aan cambaaraynaynaa falkaasi waxaan ka codsanaynaa madaxda Puntland in ay si degdega oo shuruud la'aan ay ku sii daayaan howlihii sidii dib ay ugu ambaqaadi lahayd howlihii TV-ga Universal oo ka waday deegaanada Puntland. waxaa sidoo kale aan ugu baaqaynaa madaxda dawladda federaalka Soomaaliya in ay arrintan soo farageliyaan maadaama ay tahay arrin aan sharci ku dhisnayn isla markaana liddi ku ah xorriyadda warbaahinta iyo xorriyadda madax bannaanida ra'yiga. Cabdullaahi Xirsi Kulmiye agaasimaha bariga iyo bartamaha Afrika ee TV-ga Universal iyo Abwaan Guure oo ah agaasimaha idaacadda Kulmiye ayaa ka hadlay xiritaanka xafiiska TV-ga Universal oo ku lahaa maamulka Puntland. waxa ay sameeyeen maamulka Puntland ay shalay ku xireen xafiiska Universal ee Puntland inay ahayd qalad sababtay khalad u ahaydna maamulku waa dhibsan karaa sababtu waxay rabtaa ahaato hadda markuu dhibsado kama bilaabato processka in warqad inta la soo qoro leeyahay xafiiskii waa la xiray waxa ka horeeya in loo yeero maamulka ee la yiraahdo warkaas ayaa baxay shalay ama barnaamijkaas ayaa baxay cadeynaan rabnaa ama inaan ka hadalno oo aan beeninaan rabnaa oo warkaas inuusan jirin ayaa ka horeeya su'aal laga weydiiyo laakiin maamulada qaar waxay caadeysteen hadday waxay dhibsadaan ay arkaan inay markiiba warqad inta soo qoraan ay yiraahdaan waa xirnay TV-gaas ama idaacadaas. madaxweynaha Puntland waxaan leenahay TV-ga Universal waxaad xiri karto maahan wax la xiri karana ma waana wax loo baahan yahay waa TV caalami ah oo adduunka dhan laga daawado oo ummadda Soomaaliyeed danteeda ka shaqeeya marka ma aqbali karno maalin walba in haddii alla ku roon yahay markii wax run laga sheego lagu duulo haddii alla ku roon yahay xafiiska TV-ga ama la caburiyo warbaahinta wax la aqbali karo maahan wax la qaado karana ma Cabdiweli Gaas wuxuu ku soo noolaayay haddii alla ku roon yahay Mareykanka saxaafadda xor ka tahay ma garanayo maanta inuu Donald Trump iska bareejeynayo haddii alla ku roon yahay haddii uu ku raali gelinayo ayaanta waxa la dhahayay Trump saxaafadda ku waash. Zakariya Maxamuud Timcade Universal TV Muqdisho. suxufiyiinta ku sugan deegaanada Puntland ayaa codsaday in dib loo howlgeliyo xarunta telefishinka Universal ee Puntland. haddaba qaar ka mid ah suxufiyiintaasi ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxa ay ku muujiyeen sida ay uga xun yihiin xariga xafiiskaasi. haddaba qaar ka mid ah wariyaashaasi ayaa aragtiyadooda ka hadlaya. ku saabsan warbaahinta gobolka Bari ay isugu timi inay ka hadlaan xarigii loo geystay telefishinka Universal ee gobolada Puntland dhammaan laga mamnuucay. warbaahintu wada tashi saacado qaatay kadib waxay ka hadleen arintaasi iyo xariga. madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas waxaan u soo jeedinaynaa marka u horeysa codsiga in xarigaasi ay ka laabtaan isla markaasina xorriyadda telefishinka ee kaga howlgelayay gobolada Puntland ay dib u soo ceshaan TV-guna shaqaalihiisa ay xorriyadda u soo ceshaan oo howlahooda shaqo ay sii wataan. warbaahintuna waxaan ballan qaadaynaa in guddi arrintaasi loo saaro oo aan isla go'aaminay guddigaas oo ka shaqeynaya wada shaqeynta iyo xiriirka wanaagsan ee dawladdan waxay qoonsatay dib loo baaro oo arrintaasi inaan ka wada shaqeyno.
saxaafadda iyo dowladdu wax waa kala taban karaan horeynu u kala tabanay sanadkii dhammaaday bishii 7aad wadahadal baynu ku dhammaynay tan insha Allah waxaynu ku dhammayn doonaa wadahadal marka waxaan codsanaynaa anigoo ku hadlaya afka saaxiibaday in xayiraada laga qaado dhalinyarada ka howlgasha Puntland iyagay saameynaysaa kuwa wax laga tabanayana maaha marka insha Allah waxaan rajaynaynaa sidii aanu ku naqeen madaxweynaha Puntland inuu codsiga iyaga tixgelin doono waana mahadsantihiin waxaan oran lahaa hal la maro sharciga maxkamada hala tago dastuurka hala maro halkaas ka wanaagsan go'aankaasi waa go'aan samcaddii iyo sharaftii iyo waxyaalihii muddada aan ka soo shaqaynaynay ayuu meel ka dhac ku yahay waxaan rajaynaynaa sanadka 2017 inuu noqdo ama ay Puntland noqoto hormuud u noqoto xarun ama deegaan oo ka jiro xorriyadda hadalku xorriyadda saxaafaddu ay ka horumarsantay deegaanada kaleeto bismillaahi raxmaani raxiim kulankanagu waxa uu ku saabsan yahay xarigii loo geystay TV-ga Universal ee gobolada Puntland waxaan aad uga xunnahay xarigaas oo aan inta badan saxaafadda marka hore lagala tashan waxaana go'aan ku gaarnay sida Axmed Joker uu sheegay in guddi loo saaray arrintaas madaxweynahana waxaan ka codsanaynaa in uu sida ugu dhaqsiyaha badan u sii daayo markii la doonayay in saxaafad ay qalad gashay qalad uu dhici karaa in aan lagu degdegin xariga suxufiyiinta ama aan xariga wakaaladaha wararka lala tashado hay-adaha quseeya iyo weliba ciddii wakiilka ka ah kulankan sida asxaabtiga horeysay ay sheegtay waxa uu ku aadanaa xarigii loo geystay ama xayiraadii la saaray TV-ga Universal deegaanada Puntland runtii madaxweynaha Puntland waxaan ka codsanaynaa in aad dib xorriyadiisa TV-gaasi u siisid haddii uu khalad jirona khaladkaasi dib loo saxo kulamana la isugu yimaado oo warbaahinta iyo madaxweynaha iyo weliba dowladdu ay kulamo isugu yimaadaan marka codsigaygu wuxuu ku saabsan yahay in TV-gii laga qaado xanimaadiisii iyo gobolada dalka uu hawshiisa uga sii wato wariyaasha ka howlgala magaalada Cadaado ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay mamnuucista maamulka Puntland ee xarunta TV-ga Universal ee ka howlgala deegaanadaasi faafahinta warkan Cadaado waxaa ka soo diray wariyaheena Maxamed Maxamuud oo aadan xilli maamulka Puntland uu TV-ga Universal ka mamnuucay in deegaanadiisa uu ka howlgalo ayaa arrinkaasi wax lagu xumaado waxaa ku tilmaamay wariyaasha ka howlgala magaalada Cadaado qaar ka mid ah wariyaasha ka howlgala Cadaado oo la hadlay TV-ga Universal xaruntiisa Cadaado ayaa sheegay in haatan aan loo baahnayn in siyaasiyiinta Soomaaliyeed ay si qaldan u adeegsadaan awoodooda maadaama saxaafadda Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan xilligan dhibaatooyin kala gedisan ee ka jira dalka magacaygu waa Bashiir Maxamed Salaad Bashiir Sanka kamid ah wariyaasha ku dhaqan gobolka Galgaduud runtii aniga oo ku hadlaya afka wariyaasha gobolka waxaan si aad iyo aad u cambaareynaya xariga loo geystay xarunta TV-ga caalamiga Universal ee magaalada Garowe oo ay xireen wasaaradda warfaafinta Puntland amar ka soo baxay lagu xayiray shaqadii TV-ga halkaas uu ka hayay waxaan leeyahay marka hore oo anigu baaqaya madaxda maamulka Puntland inay arintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan ay ka laabtaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Dhagacade teeftiraha shabakada Cayluur online kamid ah wariyaasha ama saxafiyiinta ka howlgala degmada Cadaado waxaan aad uga xunahay hadaan saxafiyiinta xariga xaqdarrada loo geystay xafiiska maxaa la yiraahdaa telefishinka Universal TV ama xafiisyada uu ku leeyahay deegaanada dowlad goboleedka Puntland waxaan leenahay dowlad goboleedka Puntland ma aha inay saxafiyiinta handadaad iyo cabajugleen ama xafiisyo la xiray ay u geysato taas waxay muujinaysaa in kartida iyo maamulka dadka mas'uuliyiinta waxay tahay saxafiyiinta haddii laga arko inay qalad galaan in maaragtay maxaa la yiraahdaa idan xafiisyada la xirin dacwad la furo sidaasna maaragtay barnaamijka hadii dacwad lagu helo marka lagu qaado laakiin marka koobaad ba xafiisyada la xiray waxaad moodaa inay tilmaamayso karti xumada mas'uuliyiinta magacaygu waa Daahir Faarax Ahmed waxaan kamid ahay wariyaasha ka howlgala gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya runtii aad iyo aad ayaan uga xumahay xariga ama shaqo joojinta TV-ga Universal ay ku sameeyeen maamulka Puntland runtii waa TV sidaan naqaano si cadaalad ugu shaqeeya bulshada Soomaaliyeed in shaqo joojin lagu sameeyo ma mudno markasta siyaasiyiinta ama madaxda Puntland
si cadaalad ayuu wararkooda u tabiyaa haddii mar uu sheegay dulduleelada ka jira deegaankii amni darrada ma ahan in abaalgud looga dhigo xarig. bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa Libaan Axmed Cabdi kana mid ah warbaahinta ka howlgasha magaalada Cadaado ee xarun goboleedka Galmudug. waxaa dhawaan soo gaartay in warbaahintii Universal ay ka shaqeynaysay deegaanada Puntland xafiisyo ay leeyihiin la xiray. horta waxaan codsanaynaa kow warbaahintu waa waxa maanta u adeegaya bulshada dhiban ku sugan gudaha Soomaaliya in xorriyadda warbaahinta la ilaaliyo oo si loogu adeego bulshada laga qaado caburinta iyo cadaadiska lagu hayo. runtii waxaan aad ugu xumahay in la xiray xarumihii telefishinka Universal oo ku lahaa maamulka Puntland oo runtii ogna telefishinka Universal ka mid ah telefishinada Soomaaliyeed telefishinada ugu afka isla markaasna shaqooyinka ugu badan u haya dadka Soomaaliyeed. runtii waxaan aaminsanahay iyadoo saxaafadda Soomaaliya ognahay in cadaadis fara badan lagu hayo shaqaalaheeda waliba saxaafadda guud. Mamnuucista maamulka Puntland oo ka mamnuucay TV-ga Universal deegaanada maamulkaasi ayaa waxa uu ku soo aadaysaa xilli TV-ga Universal inta badan uu tabinayo abaaraha iyo xaaladaha adag ee ka jira dalka ee u baahan in laga qayb qaato samata bixintooda. Maxamed Maxmuud Owaadan, TV-ga caalamiga Universal, Cadaado. taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa sheegay in xarun cusub oo lagala socdo howlaha socdaalka laga hirgelin doono magaalada Baydhabo. Faafahinta warkan wariyaheena Muxudiin Xusni ayaa inoo soo diray. gaashaanle sare Maxamed Aadan Jimcaale oo ku magac dheer Koofi oo ah taliyaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo. waxaana garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wasiiro xildhibaano shaqaalaha laanta socdaalka iyo hoggaanka laanta socdaalka iyo jinsiyadda ee Koonfur Galbeed. soo dhaweyn kadib ayaa waxaa saxaafadda ugu horeen la hadlay taliyaha laanta socdaalka iyo jinsiyadaha Koonfur Galbeed Cali Maxamed Cali oo ku magac dheer Cali Dhuuxa. Koofi oo ah nin dhalinyaro ah oo ah nin aqoon-yahan ah oo ah nin aad iyo aad ugu dadaalaya sidoo uu horumarin lahaa immigrationka federaalka Soomaaliya ama sidii la isugu keeni lahaa qaybaha kala duwan ee immigrationka looga dhigi lahaa mid mudana taliya soo dhawow waxaan kugu soo dhaweynaynaa qaybta immigrationka Koonfur Galbeed Soomaaliya degmada Baydhabo oo haddeertaan ah caasimadda ku meel gaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan ku tusin doonaa qaybaha kala duwan qaybta baasaboor bixinta qaybta socdaalka waxaan ku tusin doonaa every documentation walba oo aan ku hayno iyo qaabka aan u shaqeyno. gaashaanle sare Maxamed Aadan Jimcaale Koofi ayaa dhankiisa faahfaahiyay booqashadiisa magaalada Baydhabo ee maanta waxa ay ku qotonto xoojino oo isku xir u sameyno isla markaasna ballaarino adeegyada ay hay-addu siiso bulshada reer Koonfur Galbeed. waxaan booqan doonaa xafiisyada maamulka iyo sidoo kale xafiisyada hay-addu ay ku leedahay deegaanadan inagoo u kurgeli doona xaaladda ka jirta xafiisyadaasi iyo sidoo kale adeega ay siiyaan bulshada iyo sida bulshadu ay ugu qanacsan tahay ama ay su'aalo uga qabto adeega hay-addu ay siiso. waxaan fiirin doonaa oo dib u fiirin doonaa haddii la yiraahdo hay-addu xabsiyada halkan ay ku leeyihiin iyo xabsiyada kaleeto ee ku yaala deegaanada kaleeto wada shaqayntooda. Muxudiin Xuseen Universal TV Baydhabo. kooxaha kubadda cagta ee ugu taageerada badan horyaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ciyaareed adag waxa ay ku yeesheen garoonka Banaadir ee ku yaala magaalada Muqdisho. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Shuuriya Nuur. kulan ciyaareedkan waxa uu ka tirsan yahay horyaalka kubadda cagta Soomaaliya waxaana ku coltamaya naadiyada Banaadir iyo Jeenyo. kooxda Banaadir iminka waa kooxda ugu sareysa horyaalka kubadda cagta Soomaaliya halka Jeenyo booska ay ku jirto xilli ciyaareedkan marka la eego uu ka duwan yahay boosaskii ay ku jiri jirtay dhowrkii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay. meel dhexe ayana ka joogtaa horyaalka kubadda cagta Soomaaliya. ciyaarta
ciyaartan oo ka tirsan horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ayaa si dardar leh ku bilaabatay waxaana labada kooxood ee wada ciyaaraya Banaadir iyo Genyo ay sameeyeen fursado aad muhiim u ahaa. 3 daqiiqo ugu horeysay ciyaarta waxa waqti wanaagsan ay u ahayd wiilasha Genyo halka daqiiqadahaasna musiibo ay u ahayd kooxda Banaadir. markii ciyaarta la baastay garsooraha kulanka dhexdhexaadinayana uu yeeriyay seriga tilmaamayeen ciyaartu ay bilaabatay ayaa durbadiiba waxa qalad lagu galay Maxamuud Cabdinuur Meeman oo ah kabtanka kooxda Genyo waxaana laad xora turay ciyaartoyga Aadan Ibraahim Xuseen Eney oo daafac uga ciyaaray Genyo waxaana golayaha kooxda Banaadir Thomas oo goolka ka soo yara durugsanaa ay keentay kubaddaas inay dhalato ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay gool iyo waxba. waqti yar kadib Genyo ayaa heshay fursad kale oo qaali ah dilinta 18aad banaankeeda Xasan Cabdinuur Geese xasaasi ciyaartoyga qadka dhexe ee Genyo ayaa kubad ku helay laadkii uu turayna waxa uu bedelay gool ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay in 2 gool bilowgii ciyaartaba lagu hogaamiyo kooxda kubadda cagta ee Banaadir Sports Club. ciyaartoyda Banaadir ayaa bilaabay in ay soo kabtaan waxaana dhacday Genyo inuu dhaawac uga baxo kadib markii jilibka waxyeelada ay ka gaartay ciyaartoyga Baazi Maxamed Baana oo dhanka midig daafac uga ciyaara kooxdaasi. naadiga kubadda cagta ee Banaadir oo ay ka maqan yihiin ciyaartoygooda kabtanka Daadir Amiin Cali Daada oo qabay dhaawac iyo Mustafa Maxwell xidiga Nigeria ee qadka dhexe u maamula kooxdan oo isna rooso ku maqnaa ayaa waxa dhacday inay soo laabtaan ciyaartoyga Marcel Samson ee u dhashay wadanka Kenya ayaa dhaliyay goolka koowaad ee kooxda Banaadir ciyaartana waxa uu ka dhigay 2 gool iyo gool. daqiiqado yar kadib mar kale naadiga Banaadir ayaa weerar adag ku qaaday goolka kooxda kubadda cagta ee Genyo ciyaarta ayaana mar kale waxaa 2-2 ka dhigay ciyaartoyga Marcel Samson oo goolkiisii labaad ee kulankan ansixiyay. waqtigii loogu talagalay ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 2-2. waxaan la hadalnay ciyaartoy labada dhinac ka kala tirsan. ugu horreyn waxaan dareenkiisa ciyaarta wax ka weydiinay laacibka lagu magacaabo Maxamuud Cabdinuur Meeman oo ahaa kabtanka kooxda. waxa aad ugu xumaayay waa bareejada oo dhaqsida igu imaaday ciyaartana waa sida u jeeday waa saa u dadaalna u jeeday nasiibkan nagu bareejay ma la oran karaa saameynta ugu weyn waxa ciyaarta ku yeeshay dhaawaca ciyaartoyga Baasi Maxamed Baana oo kamid ah ciyaartoyda daafaca ee kooxda Genyo. dhaawac badan waan soo gaaray balse booskooda waa buuxina waxaaba ka sii daran referiya waxyaalo oo cadcad u jeedo penalty maana caadi oo qof oo gacanta ku qabsado noogu socodsiya si calan wada balse waa kulli waa nasiib insha Allah ciyaarta kale iska soo kabsanayna. dhanka kale tana waxa iyana la hadalnay ciyaartoyga lagu magacaabo Adil Nuur Cali oo kamid ah ciyaartoyda muddada fog u ciyaaraysay kooxda Banaadir waana lambarka 11aad ee kooxdaasi isna waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku saabsan ciyaartii maanta. maxamed shuuriye horto aad u maasan tahay waana dareemi kartaa ciyaarta maanta waxay aad ciyaar aad iyo aad xamaasad badan markii 2 gool oo laga hormar ah soo laabatidna dareenkaaga sida uu noqon karna waa dareemaysaa marka good game uu ahay natiijadana 100% waa ku qanacsanahay aad iyo aad waana dareemi kartaa waana fahmi kartaa diyaar garowga kooxda iyo isfahamka ka dhaxeeya iyo spiritka kooxda ay sameynayso mar kale waxaan rajaynaynaa inaan mar kale hanano horyaalkan markii saddexaad insha Allah inkastoo qadarta Ilaahay wax walba ka weyn tahay haddana dadaal iyo juhud waxaan gelin doonaa inaan mar saddexaad qaadano koobka insha Allah haddii Ilaahay nagu tiro. waxaa goordhow halkan ku soo dhammaaday ciyaartii u dhaxaysay naadiyada Banaadir iyo Genyo waa labada koox ee ugu taageeraha badan kubadda cagta Soomaaliya waxay ka wada dhisan yihiin degmada Warta Nabadda. kulanka ayaa waqtigii loo aastay waxa uu ku idlaaday 2-2 oo ka dhigan min hal dhibic koox walba in geesteeda ay ula hoyatay. kooxda Banaadir ayaa booska koowaad ee kala sareynta horyaalka kubadda cagta Soomaaliya ku jirta waxaana sidan ku yeelanaysaa 17 dhibcood halka kooxda Genyo oo ciyaartan ka hor lahayd 8 dhibcood iyana ay imanaysa 9 dhibcood marka loogu kordhiyo dhibicda maanta ay ka heshay ciyaartii halkan ku qabsoontay. maxamed Shuuriye Nuur Universal TV Muqdisho. maxamed nuur caraale duur oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani ayaa ka hadlay warar ay qoreen warbaahinta Soomaaliland qaarkood oo ku aadanaa in magaalada Muqdisho uu kula kulmay madax ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. faahfaahinta warkan magaalada Hargeysa waxaa ka soo diray wariyaheena Najiib Cabdiwali Cabdixiis. maxamed nuur caraale duur oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maanta warfidiyeenka kula hadlaya magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay
qoraallo lagu daabacay qaar ka mid a warbaahinta oo sheegaya in mudane duur uu ka degay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya islamarkaasna uu kulan la qaatay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo. mudane duur oo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisi waxaa ka mid ahaa ayay u badan tahay waxa saaka aniga ay keenay warbaahinta horteeda ayaan sheegayaa bal ila eega warbaahinay idinku ila eega waxa saaka jaraa'idkan ku qoran siyaasi duur oo ka mid ah mustambeedka wadani oo muqdisho ka degay wuxuu yidhi wuxuu kulamo daahir yaa shamisa bal af soomaaligu ku xeel dheeraanayaday uu la yeeshay oo dhex mareen farmaajo xisbiga wadani ayaa muqdisho u diray siyaasi duur waa dhiigbax bay ku tahay buu yidhi qaranka cidda dhiig bixinaysa bal markaa way idinkaa sheegi doono garta qaadi doono hadallo badan buu qoray bale jaraa'idka waxaa laga yaabaa inay warbaahin kale ku soo baxday wataa waxaan isleeyahay taasi malaa dee jawaab hadal uma baahna madasha aynu joogno iyo meesha aynu joogno iyo muuqeenna wada jirka ah ayaa maragmalaa ugu filanay inaan af soomaali ku sharaxo oon idhaaho waa beentii inaan af soomaali ku sharaxo oo dhaleeceeyo uma baahna baan isleeyahay madasha iyo goobta aynu ku sugannay iyo idinka warbaahinta ila jooga ayaa marageeda furi doona garsoorkuna shacabkaynu u dayn doonaa waxay muujinaysaa jaraa'idkaasi waxay muujinaysaa warbaahinta ku hadasha magaca xukuumadda warbaahinta ku hadasha siyaasadda kulmiye warbaahinta ku hadasha afka xukuumadda jiheeyuhu ka lumay ee beenta ku soo celcelisa ayay muujinaysaa raadka ay bulshada kaga tegaysa iyo qaranka ay kaga tegay ta labaad waxaa la maagayaa xisbi dhan oo laga yaabo inuu wato taageero aada u ballaadhan iyo bulsho ballaadhan oo minsaylac ilaa cidhifka bari ee somalilan taageerayaal ku leh ka soo baxay muujiye cududda ku leeyahay cududdiisuna subax walba ay kordhayso ayaa waxaa la doonayaa in la shaambadeeyo oo shaambad soomaali weyna lagu dhufto yaa somalilaana markaan anigu noqon waayay somalilander anoo intaasoo xil qaranka u qabtay waa kuma ka somalilanderkii waa kuma xaguu joogaa maxamed nuur caraale duur oo xilal kala gedisan ka soo qabtay somalilan islamarkaasna si weyn uga dhex muuqan jiray siyaasadda somalilan ayaan weydiiyey su-aala tan iyo intii xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu ku soo biiray oo uusan ka dhex muuqan saaxadda siyaasadda ee xisbigaasi bal sababaha kalifay ee saaxadda siyaasadda xisbigaasi uga dhex muuqan waaye waxa uuna ku jawaabay waxaan isleeyahay xisbiyada maanta tartamaya xisbiga milgaha ummadda lagu aamini karaa inuu wadan yahay xisbiga ummaddaa isku wadi karaya inuu wadan yahay ma dhaliishani laakiin waan ku bilaabay warkaygoo warbaahinta iyo madalaha siyaasadeed waxaan dub isaga taagay waxaa arkaysaa yootan aan wanaagsanayn waxaad arkaysaa shicibkii reer somalilan oo qabaa'il iyo qolo isu kala guraya najiib cabdiweli cabdixiis telefishinka caalamiga universal magaalada hargeysa waxaa weli biyo dhaamin ay ka socotaa qaar ka mid ah deegaanada maamulka koonfur galbeed oo ay gaareen hay-adaha gurmadka si loogu gurmado dadka abaarta ay saameysay ee ku nool halkaasi. faahfaahinta warkan wariyaheena Muxudiin Xusni ayaa ka soo diray Baydhabo. maalintii shanaad ayaa waxaa gudaha magaalada Baydhabo gaar ahaan xeryaha dadka barakacay ay ku jiraan ee ay ku soo jabeen dadka abaarta ka soo barakacay xaaladda abaarta darteed ayaa waxaa biidhaamin weli ka wada TV-ga caalamiga Universal kadib markii dhawaan deeq dadka biidhaamin loogu sameynayo uu soo dhibay milkiilaha TV-ga caalamiga Universal Engineer Ahmed Abubakar. waxaa kaloo jira deeqdan biidhaaminta la sameynayo inay sidoo kale qayb ka tahay hay-adda tubta nabadda Soomaaliyeed. xerooyinka dadka barakacay ay ku jiraan ee abaarta saameysay biidhaaminta loo sameeyay waxaa ka mid ah xerada Tawakal 2, kaamka Hilaac, ADC 2 iyo waliba xaafadaha qaar ee magaalada Baydhabo oo ay degan yihiin dad ka soo barakacay degmada Diinsoor, Ufuro, Habaal Barbaar iyo meelo kale oo ka tirsan gobolka Baay. biidhaamintan oo uu ku deeqay Engineer Ahmed Abubakar milkiilaha TV-ga caalamiga Universal ayaa waxaa u soo wakiishay oo magaalada Baydhabo howshaas ka wada madaxa hay-adda gargaarka ee qalam Sheekh Ilyas Cali Nuur.
sheekh ilyaas cali nuur ayaa waxa uu ka hadlayaa halka ay ka timid deeqdan iyo gurmudka weli universal ay bixinayso ay ka socda gudaha magaalada baydhabo ee gobolka baay boqolaal qof ayaa ku nool boqolaal qoys ayaa ku nool maanta maaragtay dhowr booyadood ayaan u keennay booyadahaas maanta aan wadno ololaheedii waxaa maaragtay sabab u ahaa oo maaragtay gacan weyn ka geystay hay-adda la yidhaahdo tubta nabadda soomaaliyeed hay-adda la yidhaahdo ayaa maaragtay gacan weyn ka geysatay biidhaamiska maanta annaga aan wadno ilaahay subxaana wa tacaala ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allah ka sii ayaan leenahay tubta nabadda soomaaliyeed magacoodaba maaragtay waa magac qaali ah marka aaday u mahadsan yihiin maaragtay walaalahooda muslimiinta ah ay caawinayaan aad baan ugu faraxsannahay maaragtay barnaamijkan maanta aan wadno ilaa maaragtay muddo aan sii wadnay injineer axmed abubakar ayaa ugu horeeyey barnaamijkan uu bilaaway ilaa yoomina haadaa maaragtay khayrku waa socdaa ummaddii maaragtay biyahoodii ayaan gaarsiinaa meeshii abooddayna gaarayso dhowr tuulooyin ayaa saakana loo diray biyo loo diray maaragtay maantana annagana naftirkayna gacantayna aan ku soo gaarsiinay dadka waxaa soo qaxiyey maaragtay abaar iyo gaajo iyo dhibaato ayaa soo qaxisay marka ilaahay subxaanahu wa tacaala amni iyo barwaaqo allahna siiyo kuwii guryadooda ayagoo aamina ku laabtay allah naga dhigo kuwii guryadooda ku nastay allah naga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala roob khayr qaba allah noo keeno ummadda soomaaliyeed oo walaalaha ah maanta dadkan cid u maqan ma laha ilaahay subxaanahu wa tacaala mooye dadka oo walaalahayna ah oo mar kasta ka danqanaya walaalahoodii oo u naxariisanaya ayagoo naftirkoodaba maaragtay carruur ay leeyihiin oo naftoodu maaragtay u baahan yihiin waxyaalo badan ayay waxay sameeyeen naftooda intay ka soo gooyaan carruurtooda ka soo gooyaan ayay u soo diraan walaalahooda dhibaataysan markii tvda ay ka daawadaan marka ayaga naftirkooda waxaan leenahay ummadda soomaaliyeed annaga keligayna ma aha dad kaleed waxaa jiro oo maaragtay ayagana shaqeeyo oo khayrka ka shaqeeyo wanaagga ka shaqeeyo dadka biyaha dhinaca ay ka wadaan ay gaarsiiyaan oo cuntada ay gaarsiiyaan ayagana waxaan leenahay ummadda dhan meeshay joogto oo khayrka iyo wanaagga ka shaqaynayo waxaan leenahay ajar iyo xasanaad allah ka siiyo ummadda soomaaliyeed dhibaatadeeda ma aha wax ku kooban oo meesha annaga hadda aan taagannahay keliya dhibaatada meel kasta ayay isla wada gaartay dadka marka dibidaha ku nool ayagana gacan weyn ay ka geystaan intii awooddooda ay ka geystaan marka qofkii oo maaragtay barri u dir ama waqooyi u dir ama koonfur u diraba dhammaantooda waxaan leenahay gacantaad geysateen ajar iyo xasanaad aan la soo koobay karin allah idinka siiyo maalin xoolo waxba aysan taraynin magac waxba aysan taraynin allah idinku badbaadiyo maalin dadka ay kala cararayaan oo qiyaamo la taagan yahay quraxda oo maanta aan u taagannahay kuleelka badan maalin ka daran ayaa jirta maalintaas allah idinku badbaadiyo muxudiin xusni tv-ga caalamiga universal magaalada baydhabo warkii caalamka oo daawadayaal aan idinkaga soo gudbinaynay xarunta tv-ga universal ee magaalada muqdisho oo idinla socodsiinaysay anigoo ah luul xuseen cilmi waa naga intaan dib u kulmayno warkan kan xiga nabadgelyo.